السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا ku xiran kanalka Dooreysatiya kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta aan uga hadli doono tufaax wuxuu ka mid yahay qudaarta ugu shaaciyada badan ee adduunka maxaa yeelay shacbiyadiisu aad ay u badan yihiin cunistiisana aad ay u wanaagsan tahay waana qudaarta ugu khatarsan caafimaad ahaan waxaana laga ogaaday cilmi baaris badan oo lagu sameeyay faa'iidooyinka tufaaxa uu leeyahay haddaba halkani waxaan ku ogaanaynaa faa'iidooyinka laga helo tufaaxa cunistiisa tufaaxa waxa ku jira nafaqo aad u badan oo qof waliba uu rabo jirkiisa inuu nafaqeeyo waxa loogu talinayaa inuu cuno hal xabo tufaax maalin midda kale tufaaxa waxa uu u wanaagsan yahay miisaan dhimista tufaaxa waxa uu u wanaagsan yahay wadnaha waxaana lala xiriiriyaa halista cudurrada wadnaha arinta kale ee ku jeclaysiinta cunista tufaaxa waxa uu yareeyaa halista kaadida macaanka ama sukrowga tufaaxa wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay inuu caloosha socodsiiyo sidoo kale wuxuu hagaajiyaa dheefshiidida dhanka kale badbaadin alla ayaa leh tufaaxu waxa uu ka hortagaa ama la dagaaltamaa unugyada marka soo dhalanaya sababi kara kansarka cunista tufaaxa waxa kaloo u wanaagsan yahay caafimaadka lafaha sidaa daraadeeda haddii vitamin D uu ku yar yahay isla mar ahaantaana lafa xanuun waa in aad ku dadaashaa cunista tufaaxa ugu dambeyntii wuxuu ka hortag u leeyahay isticmaalka ilaaliyaha caafimaadka maskaxda weliba xilliyada da'da ah haddii aad da' ah ama aad qof dhalinyaro ah baso cunista tufaaxa